maanta waxaan ku soo qaadan doonaa qiso aad u xanuun badan. qisada oo ku saabsan wiil guursanaya gabadha uu guursanayo kama raalli aha hooyadii inay meesha joogto. waxay ku dhahday hooyadaa naga deji, aanu sawir galna hooyadaa naga deji. mar labaad ayay ku dhahday hooyadii ma dejin karayo. ma dejinaysa mise aniga ayaa dejiya? u kaadi ayuu dhahay. wiilku waxuu sameeye garan maayo. hooyadii ayuu fiiriyey oo wuxuu ku dhahay hooyo, waa inaad faamilkaaga u tagtaa ama dadkaaga aad u tagtaa. hooyadu ma samayn karay ayay dhahday, oo kaama tegay arooskaaga oo jira. hooyo waxa ay leedahay miyaanad maqlayn? hooyadaa ha u tagto faamilkeega ama dadkaaga ha u tagto. hooyadu aad ayay uga murugootay maadaama arooska wiilkeega uu yahay oo haddana ay lagu leeyahay ka teg meesha. way soo baxday oo waxa ay u soo dhaqaaqday inay arooska ka tegto, laakiin damiirka hooyanimo ayaa siin waayey maadaama uu arooska wiilkeega yahay in ay ka tagto arooska. way istaagtay oo gadaal ayay u fiirisay wiilkeega. wiilkeegu wuu soo fiiriyey oo wuxuu arkay hooyadii oo meesha ka tegi la oo soo fiirinaysa. kadib gabadha uu guursanayo aad ayay ugu faraxsan tahay wiilka guursanaya maadaama uu hooyadii ku dhahay orod iska teg. hooyadu way sii dhaqaaqaysaa oo way sii socotaa. wiilku waa ka daba yimid oo waxa uu ka codsaday asxaabta muusiga tumaysa in ay ka joojiyaan. runtii dadka meesha jooga way yaabeen oo iyadaa ka mid ah oo waxay dhahayn muxuu soo wadaa? asxaabay, waxa aan rabaa inaan hooyaday iibiyo. gabadhu way yaaban tahay. cid iga iibsanaysa miyaa jirta hooyaday? hooyadu waxa ay soo xasuusatay markii uu yaraa oy u dhaqi jirtay ama ay u qaban jirtay heesta ay u qaadi jirtay iyada oo ku faraxsan wiilkeega qaabka ay ugu meedhayso oo haddana ay u qaadayso hees. hooyo, aad ayaan kuu jecelahay, kaamana maarmi doono hooyo. cid ila hadasho miyaana jirin? hooyada cid iga iibsata ma jiraysa miyaa? anigu waxa aan rabaa inaan hooyaday iibiyo. hooyadu mar kasta waxay soo xasuusanaysaa isagoo yar ama isagoo weyn sidaa uu koolkoolin jirtay. hooyadu waa midna ka fikirta haddaan yarnahay iyo haddaan weynahayba. hooyo waa lama huraan meel kastay adduunka joogto. wiilku waa yaabay oo wuxuu waayay qof u jawaaba maadaama uu hooyadii iibinayo. anugu waxaan u arkaa inaanad hooyadii iga iibsanayn. dadkiina meeshiis ku imaaday. gabadhu way yaabantaha oo waxay leedahay muxuu soo wadaa? hooyadii ayuu u tegey isagoo aad u murugaysan oo hooyadii eegaya. kadib waxa uu tegey ina uu jilbaha ka qabsado ama uu lugaha ka dhunkado hooyadii. wiilka baarrigii waa ka sidaas sameeya. hooyadu way soo kicisay oo waxay dareentay inuu wiilkeegu aad u jecel yahay. oohin ayaa meeshay ka dhacday maadaama wiilkeegu uu u soo daadegay lugahana ka qabsaday. hooyo, aad ayaan kuu jecelahay, kaamana maarmo wiilkaygii. isaamax hooyo ama i cafi hooyo. anugu waxa aan rabay inaan hooyadii iibiyo, laakiin qof daciifa anigu ma ihi oo hooyadii iibinaya. aniguse laakiin waxaan ka waday inay cidii hooyadii iga iibsanaysa aan fiiriyo. cid iga iibsatana waan waayey, laakiin aniga ayaa hooyaday, anigaa iibsanaya hooyaday. hooyadu ma aha wax la iibinayo ama la iibsan karayo. qofka ay waalidka u tahay ama qofka ay dhashay unbaa iibsan karaya. runtii waa qiso aad u xanuun badan. hooyo meel kasta oy adduunka ka joogto iyadu ma aha mid la gadan karayo ama mid la iibsan karayo. hooyo waa lama huraan. barnaamijkan waxaa idiin soo